السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا أخيارت الشرفت إيا قيمها له ومركلة إيو برنامجكي عافيماتك آمر والبايدين سو قدبناي ما أنت برنامجك وحنكو سو قادنا يا محا دادية تمها واحد دادية وحياو بدن لكن waxaan rabaa waxyaabaha ugu waaweyn in aad la qaybsado maanta maxaa kamid ah horta timaha daadanaya laba qayb ayaa u kala saaraya qaybna waa timaha oo khafiif noqda oo mar alla markaad shanlaysto shanlada soo raaca qaybna waa qayb oo timaha dhan iska soo daata oo madaxa la moodo in laga xiray oo kale qaybaha madaxa kamid ah qayb ayaa la moodaa in la xiray oo kale madaxa laftiisa ayaa la arkaa marka qaybtaas waxaa la dhahaa badanaa alopecia ayaa la dhahaa alopecia madaxa timaha khafiifka noqdana dee thinning hair aa la dhahaa thinning hair qaybta saddexaad kolleyba waxay noqonaysaa iyaduna baldingka waxa la dhaho ama bidaarta oo kale so madaxa badanaa timaha waxa daadiya badanaa waxaa ugu waaweyn waa saddex shay saddexdaas shay kan ugu weyn waa stresska ayaa daadiya timaha stress marka laga soo tago waxaa kaloo daadiya timaha hormoonadana waxaa kamid ah hormoonada waxaa kamid ah hormone imbalance waxa la dhaho hormoonada oo aan dheelitirnayn waxaa kamid noqon karaa uurka oo kale hablaha dumarka markay uurka leeyihiin hormoonadooda hormoono cusub ayaa kusoo biirmaya hormoonadooda imbalance ay noqonayaan waxaa laga yaabaa marka timaha inay saas darteed uga daataan waxa kale oo daadin kara thyroid hormone waxa la dhaho hormoonka asaguna thyroid la dhaho oo dhuunta ama cunaha gala ayaa asaguna daadin kara ka saddexaad ee timaha daadin kara waxaa laga yaabaa daaweyn aad qaadatay sida antidepressant oo kale daawada depressionka loo qaato iyaduna way daadisaa timaha iyo daawooyin kaloo fara badan ayaa daadiya waxaa kaloo timaha daadin kara qolofta timaha gasha ama waxyaabaha la dhaho dandruff waa taqaanaan qolofta timaha gasha ee cuncunka badan dandruff ayaa la dhahaa taasna way daadisaa timaha waxaa kaloo timaha daadin kara nafaqo la-aanta nafaqo la-aanta maxaa kamid ah waxaa kamid ah ironka oo kale ama dhiigga qofka ku yaraado oo kale qofka hadduu dhiigga ku yaryahay timaha way ka daataan waxaa kaloo laga yaabaa zinc waxa la dhahaa jira qofka hadduu zinc uu ku yaryahayna timaha way ka daataan marka cuntooyinka fiican ee naturalka haddaad cunto way kusoo noqonaysaa nafaqadii way kusoo noqonaysaa sida stresska oo kalena haddii aad iska yarayso stresska exercise aad samayso ama stresska wuxuu keenaa hurdo la-aan wuxuu keenaa dadka qaarkiis cunto badan ayay cunaan cayilkuu keenaa waxaa laga yaabaa dadka qaarkood cuntada inay ka go-aan stresska aad buu uu kala yahay waa different stress ayaa jira marka isku day inaad stresska iska yarayso hadduu stress ku keenay inay timaha kaa daataan haddii uu hormoon keenayna hormone imbalance kan oo uurka uu keenayna insha allah markaad dhasho dadka dumarka qaarkood markay dhalaan kadib hormoonadooda caadi ay kusoo noqdaan timihiina caadi bay kusoo noqdaan haddii daawooyin aad qaadanayso ay ku keeneena dhakhtarkaaga la xiriir horta mar walba dhakhtarkaaga la xiriir u sheeg bal inay timuhu kaa daadiyeen oo kale teeda kale thyroidka oo kale qofka haddii uu thyroid leeyahay badanaa dhakhtarka u sheeg waxaad tirahdaa waxaan rabaa inaad thyroidka iska baaro waayo timaha iga daata sometimes dhakhtarkaaba kuu sheegayaba inuu maaragtay waxan ay thyroid keeneen ama wuxuu kugu leeyahay thyroidka iska baaro so thyroidka haddii uu kaa keenayna dawooyin buu leeyahay thyroidka waa laba nooc waa thyroidka oo aadka u shaqeeya iyo thyroidka oo aan maaragtay si fiican u shaqeynin so taasna dawadiisa waa in aad dawadiisa qaadataa thyroidka ta kale nafaqadana waa cuntada nafaqada leh cagaarka oo kale spinach ironka qofka hadduu ku yaryahay spinachka haddaad cunto hilibka iron buu leeyahay naftigiisa qudaar fara badan inaad cunto madaxa qolofta gala dandruffka waad aragtay anti dandruff shampooyin la dhahaa jiro shampooyin aada u fiican oo anti dandruffka loogu talagalay oo qolofta kaa yareynaysa ayaa jira shampooyinkaas qaar aad bay u fiican yihiin waxaa kaloo fiican qasilka oo kale qasilka qolofta aad buu ugu fiican yahay timaha qoloftooda aad buu ugu fiican yahay
iyo haddii aad isticmaashay jilcisada oo kale aadan si jilcisada naftigeeda hab loo isticmaalaa jirto jilcisada dad baa iska marsada laakiin waa inuu kuu mariyaa qof professional oo yaqaana sida loo marsado inkastoo jilcisada ay xun tahayba ay jilcisadu videogii hore ee aan kaga hadlay jilcisada inay dhibaato fara badan ay keento cudurro badan laga helay laakiin haddii aadan ka marmaynin at least qof professional ha kuu mariyo waayo haddii aad qalad u marsato jilcisada timaha way kaa daadisaa jilcisadana waa taas dawo kale ma laha timaha haddii ayba kaa daataan tan ugu horeysa waa inaad fiirisaa nafaqadaada tan labaad hormoonadaada ta saddexaad stress iyo dawooyin cusub oo aad qaadatay ayaa laga yaabaa inay kaa daadiyeen marka kuwa ugu waaweyn waa intaas laakiin mar walba dhakhtarkaaga la xiriir haddii ay timo kaa daataan mar walba dhakhtarkaaga la xiriir oo dhiig iyo ha lagaa qaado bal ha la ogaado in ay dhibaatada ku haysa haddii aad uur leedahay waad ogtahay waa uurka haddii kalena stress oo ku hayo stress isku day inaad iska yarayso nafaqa daradana waxaa lagu ogaadaa dhiigga of course haddii dhiig lagaa qaado qolofta timahana dee waxaad isticmaali kartaa anti-dandruff iyo waxaa kaloo jira head massagekuna timaha aad buu ugu fiican yahay waayo wuxuu siinayaa circulation massageka timaha la masaajeeyo ama madaxa la masaajeeyo circulation fiican buu siinayaa timahana way ku baxaan intaas ayaa idinla qaybsanayaa aad iyo aad umahadsantihiin waa inoo next video insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu